bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka dunida qodobada wararka xiisaha leh ee aan xiliga kan idin hayno waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Kismaayo oo dib u soo laba kaclaysay iyo dibadbax xooggan oo ka dhacay maanta magaaladaasi muxuu salka ku hayay dibadbixii ka dhacay magaalada Kismaayo dil nabadoon caan lagu geystay Kismaayo iyo dibadbaxa ka dhacay halkaasi waan eegi doonaa ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo dooni kula degtay xeebta dheer ee xiriirisa gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose maxaa khasaare oo jiray ilaa haatan waan eegi doonaa madaxweyne Farmaajo oo muddo kadib go'aan ka qaatay qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waa maxay go'aanka uu qaatay madaxweyne Farmaajo waan idin haynaa xasan sheekh maxamuud oo dab iyo bensiin ku shubay xiisadda dhanka badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya xilli dhawaan ICJ ay mar kale dib u dhigtay dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya hadalka xasan sheekh uu ku dhawaaqay waan idin haynaa 21 Oktoobar maalintii uu Siyaad Bare uu dalka awood militari ku qabsaday oo maanta ku beegan maxaa ka taqaanaa waxyaabihii barigaasi ka dhacay gudaha dalka maxay dhaliilaya ammaan ay leedahay dawladdii Siyaad Bare waan idin soo gudbin doonaa qodobadan ayaad warkaa ku daawan doontaan daqiiqadaha soo aadan saaxiibada qiimaha qadarinta inaga mudan haddii rab uu ka raali noqdo channelka subscribe ha idin ahaado si aad u heshaan muuqaaladeena xiga had iyo goor bal haatanna daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaa maanta kacsan xaaladda magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoon uu halkaasi ka dhacay dibadbax balaaran banaanbaxa oo ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kaga soo horjeedeen dil xalay magaalada Kismaayo loogu geystay nabadoon ganacsade ah kaas oo lagu magacaabi jiray Xaaji Saciid Ciise Adoon dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in cadaaladda la hor keeno kooxdii ka dambeysay dilka marxuumka sidoo kale qaar ka mid ah dibadbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dilkaasi uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed sida ay hadalka u dhigeen ganacsade Xaaji Adoon oo xalay lagu toogtay gudaha magaalada Kismaayo waxaa dilkiisa geystay dabli bastoolada ku hubaysnaa kuwaasi oo dilka kadib goobta isaga baxsaday Jubbaland oo ka hadashay dilkaasi loo geystay ganacsadaha ayaa sheegtay inay ka xun tahay isla markaana ciidamada ay ku raad joogaan raggii dilka fuliyay dilkaasi ganacsadaasi loogu geystay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu qayb ka yahay falal amni daro oo hore uga dhacay magaalada Kismaayo oo loogu geystay xubnaha dhaxalgalka ah ee ku sugan magaaladaasi wararka naga soo gaaraya xeebta badweynta Hindiya ee magaalada Marko ayaa sheegaya in xalay fiidkii ay ku degtay halkaasi doon ay wateen ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya badda ayaa waxa wali ku maqan hub iyo ciidan iyadoo qaarna laga baadigoobayo gudaha badda halka kuwa kalena la soo badbaadiyay ciidankaasi ayaa waxay ka tirsanaayeen guutada 14 Oktoobar kuwaasi oo doon kaga baxay xeebta magaalada Muqdisho waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Marko xarunta gobolka Shabeellada Hoose taliyaha ciidanka 14 Oktoobar ee magaalada Marko iyo 12 askari ayaa laga soo badbaadiyay badda kadib markii doontu ay fariisatay waxaana wali la baadigoobayaa tiro kale askarta ka mid oo gaaraysa ilaa 3 kale saraakiisha gobolka ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa 3 askari la laayahay ku dhawaad 20 qori oo isugu jira AK47 BKM ama dabajeex wali lagu laayahay badda ciidan kale oo iyaguna doonsita ayaa ku baxay goobta kuwaasi oo badbaadada u sameeyay taliyaha iyo ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada Marko ayaa waxa ku adag inay isticmaalaan wadooyinka dhanka dhulka ee gala magaalada Marko sabab la xiriira amni dari waxaana jirtay miilooyin fara badan oo al-shabaab ciidanku ugu aaseen wadooyinka gala magaalada Marko waana mid keentay in ciidanku isticmaalaan dhanka xeebta madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aan ka gaaray muddo kadib buuxinta boosaskii ay ka geeriyoodeen agaasimayaal iyo gudoomiyaal degmo iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir kuwaasi oo ku dhintay qaraxii 24 bishii 7 ee July ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir madaxweynaha ayaa odayaal iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin oo kulan la yeeshay dhawaan
u sheegay in aanu qof aysan ogeyn madaxtooyada Soomaaliya iminka wixii ka dambeeya uusan xilka qaban doonin maamulka gobolka Banaadir ama dawladda hoose. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku wargeliyay tiro odayaal ah oo shakhsiyaad u ololeynayay sidaan xogta ku helay in iminka wixii ka dambeeya cid waliba oo dawladda hoose xil doonaysa inay ka qabato aad loo xaqiijin doono. maamulka gobolka Banaadir waxa ka banaan jagooyin fara badan oo isugu jira agaasimo waaxeedyo iyo gudoomiyaal degmo oo ku dhintay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa walaac xoogan ka muujiyay halka uu ku socdo kiiska dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya. qoraal uu bartiisa Twitter ka soo dhigay ayuu Xasan Sheekh Maxamuud walaac uga muujiyay in laga yaabo in sida waxay u socdaan hogaamin karto in kiiska badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ah ee ICJ. Xasan Sheekh ayaa yiri maxaa ku dhacay kiiskeeni badda maxkamadda ICJ dadkeena waxay xaq u leeyihiin sababta iyo sida kiiska dib loogu dhigay in loo cadeeyo mise tan waxay bilow u tahay heshiis ka baxsan maxkamadda. sidaas waxa yiri Xasan Sheekh Maxamuud dawladeena waa inay banaan ka timaadaa jawaab ku haboon ka siisa shacabka Soomaaliyeed ee ka warsugaya. sidaas waxa yiri Xasan Sheekh Maxamuud dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii maxkamadda ICJ ay sheegtay in gudagalka dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya dhanka badda ay u dhigtay marka la gaaro bisha 8aad ee June sanadka soo socda ee 2020. isla go'aanka habeenka uu ka soo baxay maxkamadda ICJ-na waxaa soo dhaweysay dawladda federaalka ee Soomaaliya. maanta oo kale 50 sano ka hor ayay ahayd markii Soomaaliya uu ka dhacay afgambigii military ee uusan dhiiga ku daadan ka gadaal markii la dilay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke xilli uu booqasho ku joogay gobolka Sool ee Soomaaliya. afgambigaasi oo uu hogaaminayay jaalasiyaad Allah u naxariistay ayaa markii uu talada dalka gacanta ku dhigay ugu horeenba laalay dastuurkii dalka lahaa iyadoo meesha laga saaray baarlamaankii uu dalka lahaa oo xilliga ku mashquulsanaa ciddii bedeli lahayd madaxweynihii la dilay xilligaasi. militarigu markii ay dalka qabsadeen waxay markiiba soo saareen laba warqadood oo ay ugu magac dareen warqadda koowaad iyo tan labaadba oo ay ku qeexeen siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo tan gudaha ee Soomaaliya iyadoo sidoo kalena meesha laga saaray xisbiyadii faraha badnaa ee kacaanka ka hor dalka ka jiray. inqalaabka ciidamada ay dhigeen ayaa shacabkii Soomaaliyeed ee xilligaasi joogay waxay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan kuwa oo qaarkood soo dhaweeyay iyo kuwa mucaaraday oo u arkay in militariga aan loogu talagelin siyaasadda balse shaqadoodu kaliya tahay burburin. halka aragtida dadka qaar ay qabeenna ay taa ka duwaneed oo ay aaminsanaayeen in xaaladii dalka ka jirtay barigaasi in ay dhaantay in la helo isbedel siyaasadeed oo weyn. kacaankii dalka la wareegay ayaa talaabooyinkii u horeeyay ee uu qaaday waxaa ka mid ahaa qaadashadii mabda'ii shuuciyada ee hanti wadaagga kaasoo lagu soo dhaweynayay xukuumaddii midowgii Sofiyeeti ee xilligaasi jirtay taasoo mandiqadan istiraatiijiyad military ka lahayd maadaama uu barigaasi socday dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay wadamadii galbeedka iyo bariga ama haddii aan si kale u dhigno labadii gaashaanbuureed ee Warsaw iyo NATO. waxqabadkii kacaanka marka la eego ayaa ahaa mid 6 sano ugu horeysay wax badan ka bedelay siyaasadii dalka ku socday ka gadaal markii mashaariic isdabayaal uu keenay sida ololihii sida qabyaalada waa sida warka loo dhigay ololihii qorista farta hooye ee Soomaaliga abuuritaanka mashaariicdii shaqada loogu abuurayay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo xaalado shaqo la'aan baahsaneed ay haysatay bariga. sidoo kale talaabooyinkii kacaanka lagu xusayo ayaa waxaa ka mid ahaa qarameyntii shirkadihii ajaanibtu maamuli jirtay ee dalka ka jiray sida bangiyadii batroolkii. waxaa kaloo lacag la'aan laga dhigay waxbarashadii dalka caafimaadka iyo ugu dambeyn xoreyntii dhulka Soomaaliyeed ee gumeystayaasha ka jiray. sanadka markuu ahaa 1976 ayay ahayd markii ay bilaabatay musiibadii dalkan ka curatay kadib markii la sheegay in taladii dalka gacanta loo geliyay xisbigii hanti wadaagga Soomaaliyeed oo uu xogayaha guud ka noqday Allah u naxariistay jaalisiyaad xubnaha ugu badnaa ee xisbigaas
ayaa waxa ay noqdeen saraakiishii xukunka qabatay oo dareyskii ciidanimo soo dhigtay soona gashtay dhar cad si ay ugu muuqdaan dad rayid ah. inkastoo kacaanku wax badan qabtay haddana dhaliishiisu watay ka gadaal markii uu soo baxay sharcigii xeerka qoyska sanadka markuu ahaa 1974 markaasoo culimmadii Soomaaliyeed ay ka soo horjeesteen sharcigaas taasoo keentay in dharaar cad culimmadaasi dhagta dhiiga loo daro. sidoo kale taliska ayaa waxaa lagu dhaliilay nidaamkii diktatoriyadda ama kalitalisnimada iyadoo markii dambena qabiilkii uu ka awood badnaaday awoodii dawladnimo. dhaliisha kacaanka ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa in uu jiray nidaamkii naasnuujinta iyo nin jeclaysiga qabiilnimo oo markii dambe qayb ka noqotay maamulkii siyaad bare ee dalka. si kastaba wax dhammaystiranba ayaan dunidan ka jirin, sidaasi daraadeed kacaankaasi waxa uu lahaa dhaliil iyo wanaagba, taasoo markii dambe keentay in dalka ay ka hana qaadaan jabhado hubaysan oo ay ugu horeysay jabhadii la oran jiray SSDF ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf sanadkii 1978. ugu dambeyntiina cadaadiskii ka imaaday jabhadii hubaysnaa ee dalka ka hana qaaday ayaa keenay in taliskii afka ciida loo daro sanadka markuu ahaa 1991 iyadoo afgambigaasi kadib dalka uu galay xaalado aan wanaagsanayn, jahawareer siyaasadeed, kala qaybsanaan siyaasadeed iyo karaamadii shacabka oo dhulka ku dhacday. walow Soomaaliya wali aysan si buuxda ugu soo kabanin jugtii xiligaasi ku dhacday, haddana rajada maanta ma ahan mid xun oo qof walba oo Soomaali ah wuxuu aaminsan yahay wixii dhici lahaa ay dhaceen lagana soo kaban doono. warkii aad kala socoteen daawadayaal channelka wararka dunida xiliga kan waa naga intaa. daawashada wacan warkeena waad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.